axmed waan soo gabagabeynaya laba su-aalood oo u dambaysa ku weydiinaya su-aasha koowaad waxaa weeye aniga markaan Soomaaliya joogay oon yaraa waxaan aad u arki jiray markaa meelahan imaado yaan arag waxay ahayd dadka miyir ahaan inta loogu dhex dhaco ama qofka si noqdo guri la keeno quraan la saaro qaarkood la uleeyo waxa ay ka dhaxlaan oo la dhaho maxaa la jiray hebel baa ka dhaxlay ama jinni baa ka dhaxlay ama balaaya ka dhaxlay waxaas ma wax la sameeyayba ma wax asal ah caradan kale ma ka dhacdaa ummadaha kale ma nala qabaan arintaas maxaad nooga sheegi kartaa kulli horta waa mawduuc weyn mar baan haddaan rabno si fiican u hadli karnaa mar baan faahfaahin doonaa laakiin way jirtaayoo hysteria gaaladu way lahaan jirin waagii hore qofka inuu jingalo in fact Boston hadda markaan tegayay meelo qabuuroon soo booqanaynay baa jiray oo la odhan jiray waa meeshii ugu horreysay lagu dilay naagihii wijka naago layidhi dadka ayay qumayo ayaa inta la qabtayba ayaa la gubay and because dadkay galayeenoo ay ka dhaxadleen samkan aan isticmaalo buugan aan ka eegna xanuunada disassociation baa la yidhaha marka disassociation waxaa qofka maskaxdiisa inay laba qaybood noqoto oyna warisku hayn iminka marka gabdhahu ay dhacaan oo jinku ka dhaxadlayo hadhow markay soo kacaan mayna ogeen waxa meesha ka dhacay maxaa dhacay dadkan maxay rabaan maxaa igu dhacay ayay odhan jireen mugta waxa la wixii sameynayeen oo dhan war maayaan marka disassociationka uu jiraa badanaana waxaa keentaa la yidhaha extreme trauma marka waagii psychologigu uu bilaamayey ninkii Freud la odhanayay psychotherapy-ga bilaabay iyo nin Charcot la odhan jiray oo Faransiis ah ayaa daweyn jiray dadka noocaas oo kale oo dumar u badnaa oo dhici jiray oo markaa wax ka dhaxadli jireen kabacdi markii dambe multiple personality baa qaar loo bixiyey qaar dissociation vague baa loo bixiyey in fact waxaa jira hadda case baa jira nin Minnesota intuu Mall of America baabuurkiisa dhigtay diyaarad iska raacay oo Florida tegey magac kaloo yeeshay reero kaloo yeeshay weligiiba war uma hayo in Minnesota ka yimid uu is ilaawo maskaxdiisa dadkaa la wareegay dissociationka baa ku dhacay vague baa la dhahaa dissociation vague so taa way jirtaa laakiin tani dadka laga dhaxadlayo mar baa jirtay aan imaamo la shaqayn jiray aan tababari jirnay so waabaan weydiinoo ku nidhi maxaa jinku dumarka unu galaa rag badan oo idiin yimaado intay dhacaanad qur-aan ku akhridiin ma jiraan maya bay yidhahdeen haddaan aragna aad buu yiri marka maxaa keenay 90% ee dumar noqoto marka way fikireen oo way isweydiiyeen marka jawaab mayna haynin markii dambana na kuu sheegnoo nidhi ma laga yaabaa inay traumadu ku badan tahay dumarka so marka hypothesis waxay tahay weli research aan umaanan sameynin laakiin in traumadu dumarka ku badnayd siba kufsiga marka maadaamay ku badnaayeen oo wixiina laga hadli karaynin oo masalan gabadha haddii in adeerkeed kufsaday haddii walaalkeed saaxiibkeed kufsaday haddii odayga hooyadeed qaba kufsaday wixii oo dhan ayna ka hadli karaynin dan inay markaa disassociationkan isku bedeshay marka badanaa terabiga markay yimaadeenna waxaa la sameeyaa waxaa la ogaadaa meesha waxaan ka yimaadeen traumooyinkii kusoo dhacay kabacdina waxaa la isku keenayaa labadan qaybood ee maskaxdu kala yeelatay ayaa hal meel la isku keenaya marka insha Allah waa topic dheer laakiin way jiraan hadda joogtaadii oo kooban wayna ku dhacaan dadka kale DSM-kana qayb baa jirta disassociation-kaas waxaa aad ii soo jiita arrinta hadda aad tiri oo ah oo laga yaabo inay runta u badanayo in traumada iyo dhaawaca iyo dhibka loo geysto gabdhaha Soomaalida uu aad u badan yahay haddana dhaqan aan leenahay ah inaan arrimahan laga hadal oo ay ceeb tahay soo hadalqaadkooda iyo ka wada hadalkooda iyo waxooda oo wixii ayaga sababtooda gabdhaha una venue kale ama si kale oo wixii oo ay u manage gareeyaan ama ay ula wadaagaan aan u furnayn oo laga yaabo inay isku bedesho gabdhahaas maxaa la jiro wixii inta ka soo bixi waayeen la suuxayo markay miyir daboolmaan ay soo baxayaan wixii qaarkood innaka keliyana maaha labadii case ugu horreeyeen akhriyay hindi bay ahaayeen exactlyna waxaan interest ugu ahaa because sida ay hableheenu samaynayaan ayaa laba naagoo hindi oo caseka ku jiray ay sameynayeen laakiin waxaan ka helay casekaas si ay psychoanalysis ugu sameeyeen ay u baareen yaraantoodii meeshii waxaan ay ka yimaadeen
ayaa cajiiba